maalin kale oo saddexaad iyo degmada Gurceel oo dagaal faraha la soo gubtay oo ka dhacay kana socdo xilligan aan la hadlayna aan ku suganahay magaalada Gurceel waxa socda dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada Ahlus Sunna iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka Soomaaliya meelaha la kala joogo oo dabcan hadda wararka aan ka helin waxay tahay shimbiro anshe iyo sidoo kale tuulo gaban iyo waliba Sterling iyo aaga jaamacadda waxa jooga ciidamada Ahlus Sunna wal Jamaaca waxaan hadda xabadu ay ka dhacaysaa masjidka jaamaca qofkii Gurceel yaqaanaba garanaya iyo sidoo kale masjidka Munawwar ilaa xaafadaha ugaaska ayaa xabadu xoog uga socotaa waxaana magaalada laga maqlayaa diryanka rasaasta iyo sidoo kale madaafiicda ay ridayaan labada dhinac Ahlus Sunna iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya magaaladana dadkii deganaa oo awalba waa faarujiyeen haddana dadkii intii ugu dambeeyay waa ay ka barakaceen waxaana socotaa rasaas xoog leh oo labada dhinac isku adeegsanayaan ciidamada dawladda waxay ku sugan yihiin laamiga dheer ee magaalada dhexmara ilaa xaafadaha koonfurta ka xiga magaalada ilaa Xirxoosh ilaa dabcan magaalada qayb inta badan kala bar ayaga jooga halka ciidamada Ahlus Sunna ay joogaan laamiga dhinaca waqooyi qofkii Gurceel oo baa garanaya dhinaca waqooyi ay u badan yihiin mawlacii mulaaxo iyo sidoo kale iskuulka Almaamuun isbitaalka Sterling iyo sidoo kale jaamacadda iyo shimbiro anshe iyo tuulo gaban ciidamada Ahlus Sunna ayaa hadda ka dagaalamaya oo jooga ciidamada dawladana waxa ay ku sugan yihiin laamiga dheer ilaa koonfurta xaafadaha koonfurta isbitaalka qaaxada ilaa garoon Ethiopian ilaa aagaaradaas oo dhan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka dagaalamaya oo dagaal xoog leh ayaa xilliga kani ka jira meelaha hadda aan sheegay dhinacyada dirirta u dhaxayso waxa jira qasaaro kala duwan oo markaas soo kala gaaray laakiin ilaa iyo hadda faahfaahin rasmi ah kama aanu helayno maadaama aan nahay warbaahintii magaaladuna aan la gali karin oo gudaha loo gali karin oo xabadu ka socoto dhinacyaduna ay aad waxa weeye madaafiic isugu garaacayaan dagaalkuna uu xoogaystay waxa kaloo hadda wararka aan helayo ay sheegayaan inay jiraan dhaawacyo soo gaaray dad shacab ah laakiin tiro rasmi ah lama hayo dagaalkuna waa u socdaa oo xarumaha caafimaadkana qaarkood waa la xiray qaarkoodna labada ciidan baa dabcan dhaawacyada iyo sidoo kale meydadka geysanaya magaaladana maalinkii saddexaad ayuu dagaal ka socdaa meyd fara badan iyo dhaawac fara badan oo labada dhinac ayaa jira dadkii magaalada waa ka carareen oo waxa weeye duleedka magaalada ay ku dhibaataysan yihiin aad ayayna xabadu u socotaa oo aad baa waxa weeye looga dareemaya gudaha magaalada Gurceelkii aad taqaanay waa uu ka bedelaya Gurceelka haddeertaan xabadu ka socoto saddex bari ayaana madaxa kor loo qaadin oo xitaa shimbir aysan nuuxsan karin xabadaha la isweydaarsanayo aawadeed magaaladuna dabcan hadda hoobiyaal baa dhacaya sida aad maqlaysaan hoobiyaha qoriga loo yaqaan ayaa labada dhinac ay isku ridayaan jawga magaaladuna waxa uu yahay min dagaalkiisu uu xoogaystay labada dhinacba midkiisa kale waxa uu ku heerdamayaa sidii magaalada Gurceel oo markaas isoo gacanta ugu dhigi lahaa labada gidi ay kala joogaan koonfurta dawladda joogta iyo laamiga dhexmara magaalada waqooyiga iyo shimbiro anshe iyo tuulo gaban iyo mawlacii mulaaxa iyo iskuulka Almaamuun iyo Sterling hospitalna ciidamada Ahlus Sunna ayaa difaacyo waaweyn uga qodan yihiin oo ku dagaalamaya marka wixii warar ah waanu in la wadaagi doonaa muuqaalkan hal sheer gareeyo waana mahadsantihiin